Bismillah, Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaanu eegi doonaa qaabka aad ugu dari lahayd fingerprint kombiyuutarkaaga aad ugu samayn lahayd. Fingerprint-ku marka koowaad waa inuu leeyahay button-kii fingerprint-ka. Waxa qasaba kombiyuutarkaagu inuu leeyahay button-kii aad farta saari lahayd waa inuu leeyahay. Haddaba si aad ugu xidhid waxaad dooranaysaa calaamadda restart ama Windows-da, kadib setting markaad dooratid accounts-ka ayaad ka dooranaysaa. Kadib qaybtan dhinaca ayaad waxaad ka dooranaysaa sign in. Okay, markaad sign in tirahdid fingerprint ayaad dooranaysaa. Kadib waxaad oranaysaa sada. Okay, haddaba farta ayaad saaraysaa dhowr jeer ilaa iyo intuu ka buuxsamayo waad ku celinaysaa. Okay, markuu intaas dhowr jeer ku celiso oo fartii caadi u aqoonsado waxa uu ku weydiinayaa inaad pin u samaysatid. Pinki intaad weydiin password-kaagii ayuu ku weydiinayaa horta. Password-ka markaan gelin okay nidhaahno pin ayuuna weydiinayaa. Pinku waa number keliya ayuu ka koobnaanayaa oo xarfo iyo characters waxa lagu dari maayo, waa number keliya pinku. Okay, yaan nidhi wakaa hal far ayaad ku darsantay. Fartaa oo keliyana wuu aqoonsanayaa. Qof kale haddaad doonaysid ama far kale haddaad doonaysid gacantaada bidix gacantaada kale haddaad ku darsanaysidna waad ku dari kartaa waanad ka saari kartaa. Cashirkeenu intaa wuu leeyahay. Wassalaamu calaykum.